ra-iisul wasaare waad u jeedaa galabta waxa hortaada taagan oo ciidamada qalabka sido ay isugu jiraan suu janalka kuu sheegay Jenaraal Bashiir ciidamada booliiska nabad sugidda asluubta waxaa naga maqan militariga inuu ku soo dari doono haddii la yiraahdo subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo nala jooga ciidamada Amisom waxay diyaar u yihiin inay magaalada Muqdisho xasilinteeda ka qayb qaataan waxaan rabaa markaan fursadan ka faa'iideysanayo taliya xoog waa naga maqan yahay waraaq dikreet uu soo saaray marka waxaan rabnaa militariga dadka degan labada shabeelle markay soo galayaan magaalada Muqdisho inay la xiriiraan taliyahooda waraaqdooda ay amarka fuliyaan aan magaalada lagu wadan doonin hubka waaweyn sida dabajeexa cabdibilaha iyo qoryaha kale waaweyn sida hadda go'aanka uu ka soo baxay 11 May sanadka hore 2017 golaha wasiirada soo saaray ra'iisul wasaare wuxuu ahaa qofka mas'uulka oo wadan karin 4 aaka wax ka badan marka go'aankaas waxa uu meesha dabac soo galay laga bilaabo galabta halkaan joogno ra'iisul wasaare waxaan rabnaa inay mas'uuliyiinta u hoggaamsamaan amarka ama go'aanka golaha wasiirada hore ugu soo baxay sanadkii hore waxaan kaloo ka tacsiinaa inta ku dhimata maalinta Jimcada magaalada Muqdisho ilaahu naxariistaan leeyahay sidoo kale waxaan rabaa inaan ilaah ugu baryo inta ku dhaawacantay caafimaad degdeg u soo dejiyo Allah subhanahu wa ta'ala ra'iisul wasaare waxaan har haween u taaganahay aan ilaah hortiisa ballan qaadeenaa inaan cadow aan ka gambanan inaan diyaar u nahay inaan nafteena u hurno sidoo kale ciidankan ka hormuuqdo waxay diyaar u yihiin oo duruufo kasta ku shaqeynayaan inay dadkooda cadow ka difaacaan ra'iisul wasaare waxaan ugu ballan ah inaan diyaar u nahay in har haween difaacno ciidamada waxaan ku dardaarmayaa ugu dambeyntii inay ayagana shacabka u turaan ay shacabka si fiican ula dhaqmaan aan qofka haduuna haysan aqoonsi aan lagu dhawin aqoonsi dadku waa kala dareemi karaan inay feejignoodaan aan ayagana ka fareynaa waana mahadsantihiin waxaan rabaa inaan ku soo dhawo wasiirka cadaaladda